waa gabadh xijaaban koox saraakiil cusub oo aan badnayn oo ka soo baxay akademiyada booliiska Minneapolis ayay kamid ahayd maanta Ikraan Maxamed gabadh Soomaaliyeed tii ugu horeysay oo ku biirta booliiska magaaladan. Tani waa taariikh cusub inkastoo ay jiraan gabdho kale oo xijaaban oo hore ugu biiray hay'adaha ammaanka Mareykanka. waxaan rabaa dadka aniga iyaga inay ogaadaan inay suurtagal tahay. waa Ikraan Maxamed oo dareenkeeda la wadaagtay warbaahinta kadib markii si buuxda loogu dhaariyay adkeynta waajibaadka shaqadeeda cusub. booliiska magaalada Minneapolis ayaa la daalaa-dhacayay xakamaynta dambiyada oo kor u kacayay sanadihii la soo dhaafay. inkastoo ay jirtay xasaasiyad laga qabay booliiska kadib dilkii George Floyd, taliyaha guud ee booliiska magaalada Minneapolis Brian O'Hara ayaa ammaanay kamid ahaanshaha Ikraan